wargeysyada ka soo baxa koonfur Afrika oo madaxweynaha Soomaaliya ku tilmaamay inuu yahay mandeelihii labaad ee qaaradda Afrika. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho ku tagay isbuucan dalka koonfur Afrika ayaa shacabka iyo saxaafadda dalka koonfur Afrika waxay aad u sugayeen inay mar arkaan mandeelihii labaad ee qaaradda Afrika. wargeysyadan oo ka soo baxa wadanka koonfur Afrika oo hadalkooda si wata ayaa yiri madaxweynaha koonfur Afrika ee cusub ma noqon kara hogaamiye daacad ah oo dalkiisa si bilaa musuqmaasuq ah u hogaamiya sida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. wargeysyadan ayaa intaa ku daray in qaabka soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya mudane Farmaajo ka marqaati ahayd inuu yahay shakhsi leh astaan hogaamineed sidoo kalena ah madaxweyne ay leedahay qaaradda Afrika oo dhan. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la doortay horaantii sanadkii 2017 taasoo inta badan shacabka ku dhaqan deegaanada Soomaalida ay aad u soo dhaweeyeen iyo guud ahaan Soomaalida ku dhaqan caalamka intiisa kale. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta uu xilka hayay waxa uu ku guuleystay waxyaalo badan oo la taaban karo. dadka falanqeeya siyaasadda ayaa waxay ku tilmaameen inuu yahay hogaamiye daacad ah oo adeega dalkiisa iyo dadkiisa jecelna horumarka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed.